Tobankii bishan December Mareykanku waxay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay in duqeyntaasi uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday dalka baarista oo la xiriiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaasi lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa ila wareedyo kala duwan waxay dalka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdinuur oo ku magac dheeraa Marwazi kana soo jeeday gobolada Koonfur Galbeed sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyay maktabka dacwada inkastoo xilal kala duwan oo horena uu soo qabtay mid ka mid ah laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab taasina ay keentay in la bartilmaameedsado hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdinuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqayn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab gaar ahaan la macaamilka ajaanibta dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdinuur Marwazi dawladda Mareykanku waxay dhinaca kala shaacisay inay dib u soo cusboonaysiinayso abaalmarin dhan $5 milyan oo saarnayd madaxa Jihaad Sarwaan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab ahna muwaadin u dhashay dalka Mareykanka saraakiil dhinaca amnigu waxay ii sheegeen in Jihaad Sarwaan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan kuwaasi oo kala ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab Saciid Cabdullaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab aqoonna waxa uu leeyahay Jihaad Sarwaan Mustafa Sarwaan Jihaad Mustafa Axmed Gurey wuxuu yimid shaqaaye maxaakiimta wuxuu ka mid ahaa ragii muhaajiriinta maarkii shaqada suuqa soo galay dagaalkii mataqaana iyadoo ka qayb qaatay kadib markii maarkii sheegay xashiiskii maarkii soo galay wadanku wuxuu ka mid ahaa ragii u carray xaan ku raadiyay jibooyin 2009 waxaa la diray ninka la yiraahdo Nabhaan markii la diray ninka waxa mas'uul looga dhigay muhaajiriinta markii muhaajiriinta waxa mas'uul ka Nabhaankii boosiisoo galay 2009 iyo 10 iyo 11 dagaalada waxaa bilaabay xamarka maarkii dawladda iyo shaqo dhexmaray marka muddadaas maarkii wuxuu mas'uul ka muhaajiriinta oday u ahaa dagaalada inta badan uu ka qayb qaatay xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab hadda wuxuu mas'uul ka yahay maarkii wixii yiraahdo tasniic ama sinaaca farsamada tasniic waa qayb ka mid ah maarkii qolyaha maarkii waa meesha ugu sareysa warshada ugu weyn oo maxaa ku raadaan milooyinka heeyintooda farsameynta marka wax ku qaxsan waa tiinkiina waa qaaliyo waxa maarkii mar walba lama helo marka markii la keeno xiliigooda waxay sameeyaan marka baashi way beeqaamiyaan waxay sameeyaan maarkii way baxaan oo ku baxaan maarkii maxaa ku raadaan waa kala si almuunyo ku baxaan waxay noocaas oo kale way qabataa waxay sameeyaan weelasha mataqaanaa ninada lagu sameeyaan waxay sameeyaan oo kale maxaa ku raadaan baabuurta maarkii isqaxiyo biraha mataqaanaa waxa lagu dijiyaga sameeyo marka maxaan ku raad qaybtaas muxuu ka yahay marka waa maarkii laakiin hawshiisa ururka Al-Shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada wadamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha Kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada qaar ka mid ah hogaamiyaasha ajaanibta oo ka mid ahaa Umar Xamaami waxa ay ku dhinteen gacanta ururka Al-Shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka haddaba maxaa u suurtageliyay Jihaad Sarwaan Mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hoggaanka ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hoggaanka xarakada isla su'aashaas waxaa ka jawaabaya Saciid Cabdullaahi Dilib go'aan marna kama horimaan uu ku qanacsan way isku fiicnaayeen haddana kan joogo isku fiican uu ku qanacsan waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab lagu qiyaasiyay tiradooda ilaa 1,000 qof kuwaas oo u badnaa dadka ka yimid bariga Afrika hase yeeshee saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid bariga Afrika qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carareen Soomaaliya ayna tageen dalka Yemen halka qaar kale ay ku biireen ururka Daesh kuwa kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo looga shakiyay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daesh hase yeeshee inta badan ajaanibta Al-Shabaab ee ka soo jeeda bariga Afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo Jaysh Ayman ee ka dagaalama gudaha Kenya ilaa xuduudda u dhaxaysa labada wadan gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose
ajaanibta aan ka imanin bariga Afrika ee la joogta al-shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwo loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada. Khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtani ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada, inkastoo xilligan ay Soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada. Qaraxyada ayaa ururka al-shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda, sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee Soomaalida iyo ajaanibtuba. Khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabataynta Soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka al-shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii Juulaay 2017. Waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan al-shabaab, shaybaarkaasi oo ay leedahay hay'adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da. natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya. Laakiin Siciid Cabdulla Delib oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee al-shabaab iyo sida ay ku helaan waxa uu galka baarista u sheegay inuusan badnayn hubkii dowladdii hore ee xilligan ay al-shabaab u adeegsadaan qaraxyada. Siciid Cabdulla Delib waxa uu wareysigan galka baarista siiyey 26 bishii Sebteembar ee sanadkan, waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay. adeegsanaysa maba yaalaama dalka horta waxaa laga yaabaa inay ka harsan yihiin qadaa'ifkan taali waxaa sugay waasin laakiin muwaada hadda dadkay ku laayaan waa wax khaarijka laga keenay inta badan labayna u qaybsamaano maaragtay gawaarida iyo xisbiyadu waxay geliyaan maaragtay sheegeen xijaan ama tarbiyo waxay laabta soo geliyaan oo kala birta ay geliyaan gawaarida weynka waxay saaran inta badan TNT waa maado loo yaqaan TNT maaragtay shay muddo wax burburiso waxaa network-weyn yahay maaragtay sidaas labadaas madiga kooban tahay khaarijkan laga keenay inta badan yimada laga keenay waxaa laga soo dejiyaa meesha la yidhahdo Qandara niman maaragtay shibacbadeed iyo cid joogtaa meesha kasoo dejiyo xasuustamara dhulkaasaa lasoo mariyaa xabeeraa loogu keenaa inta badan ama baddaa loo soo mariyaa ama maaragtay berigay soo mariyaan oo ilaa Puntland markii muxuu ahaa soo bixinta ma adko baasaankooda ma adko welitii aad loo baaray gawaarida dadka laakiin qof markuu soo baxay maaragtay baasaankooda iska cayaabal haddeen oo laamigiisu haddeen xeeb meesha rabaan mariyaan laakiin bakterka keliya loo keeno waa meeshaas. Waxaad wax yar iigu noqotaa Yemen halkeebaa laga keenaa, miyaa la soo iibiyaa, miyaa loogu deeqaa? Sida ogtahay horta cirta ogta caalamiga adduunyada hub maaragtay hubkan mamnuuca adduunyada meel walba laga gataa. Yemenna hadda maadaama sideenoo kale waddanku isu bursay waa la soo geliyaa hubka suuq ahaan mataqaan way ka soo gataan wadaa ku shaqaysto waxaas nimanka hadda xataa Puntland ay ka soo gataa barqadeedu ma aha niman ay ku fikiraan ma aha way soo galaan lacag kala baxaan laakiin markii ugu yarta 200 iyo boqol u bixisa ayaga keena qolada barqadeedkan ee doctorada ayaga soo qaaday gaalkay keena lacag wixii ka markii keena meesha la yiraahdo xareer markii wax tabsiya. Saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in al-shabaab hubka ay ka soo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Puntland. hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa marka ugu horeysa Yemen gacanka cadan buu ka yimaadaa Yemen marka hubka ma samayso iyo waqtigooda waxay ka keenaan dhul kale dowlado kale oo ay ka mid tahay Iiraan waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan hubkaasna waxaa keena dad saraakiil hore ahaan jiray oo dowladda Yemen oo si bedel inay gaarsadaan hubka. Waa gartay halkee ugu badan ay kasoo degaan? waxa ugu badan ay ka degaa waxa weeyaan meesha miidaha qaaga reerka Sanaag bariga Gardafuul fata badacas iyo meesha miidaha Xarabeer saddexaas meel ugu badan. Hubkan dadka Kenya ma ganacsato Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan kooxaha argagixiso? waxaan inagu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata hubka ka ganacsada mana aha Soomaali keliya Afrikada badankeed galbeed dhan waa la geeyaa Afrikada maxay ilaa laga soo bilaabo Suudaan hubka waa la geeyaa farta badacas oo ka baxa marka ma aha Soomaaliya keliya dadka ka ganacsada waa dad ganacsata waxay ka yihiin dad kasta oo dad ganacsata oo ku jiraan Daesh iyo Al-Shabaab. dabcan waxa laga iibiyaa qabaa'ilada oo hadda waxa la noqotay nidaam habka qaybsiga beesha ma hubeysan baad maqlaysaa iyo inana qabi karo beesha sida been hubeysan marka beeluhu waxa inta badan isu hubeeyaan inay miiska xaajadka ay maxay tahay si fiican uga doori karaan
waxay isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale isku dhac iskaga ilaaliyaan sometimes waxaa laga yaabaa hubku inuu sababo iyada aan dagaalba dhaceen qabiil markuu hub helo inuu maxay hangeliyo inuu cid kale weeraro marka wuxuu fududeeyaa in dagaal dhaco wuxuu mas-uul ka yahay xasiloondarada ka jirta dalka badankeed hubkaas ayaa shidaal ah waxa iibsada hubka dad siyaasiyiina oo iyagoo kooda awood ka doonaya ama dowladda ku jireen ama ku jirno waxa iibsada kooxaha argixisada waxa iibsada dad kaloo shakhsiyaad ganacsadayaal ah marka hubka hadda waxa weeye darag kulul buu soomaaliya ku hayaa lacag aragna way ku baxdaa oo dalka dee kusoo galaa haddana waxaa khasaara ahayd ma soo kordhiyo mar kale haddii aynu dib ugu laabano jihaad sarwaan mustafa waxaa galka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsanaan jira ururka al-shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisiyaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado waxaa kaloo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamo yaqaano ka tirsan ururka al-shabaab siciid cabdulla dilib waxa uu galka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay jihaad sarwaan mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal fikradda samaynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka al-shabaab ibraahim cali cabdi anta oo lagu dilay duqayn maraykanku ay ka geysteen agagaarka jilib bishii Disembar 2014 waxaan ka naqaashin waxaa kamid ah in gantaalo sameeyaan oo maarkiisa gantaalka maadi waxa maadada yiraahdaan daashacado gantaalka riddo oo tuurto in la sameeyo waxaan naqaashin ka naqaashin wixii horna way socon waayeen marka dambe waa gantaal noocee ayay ka fikireen inay sameeyaan gantaalaha mataqaana la riddo oo maarkiisa waxay ka koobiyeen kulli maarkiisa la siinay meelaha saarto gantaalaha mataqaana maxalliga maarkiisa freeshta wala sameeyay way tijaabeen daashacado way sameeyeen hatta maarkiisa laakiin wixii maarkiisa way control waayay bisadai maxaad ka wadaa way control waayay ana wala dibaal wala sameeyay haye waxay ku tijaabeen meel xaalada meel yaraana banaanka xal banaanka ma sinac meel ku dhayaa qoon way marka control dibaalka maarkiisa la xadido waxay kaliya ku guuleysteen inay sameeyaan daashacadi markaas ka warqabtid waxa tuuro daashacadi yiraahdaan واضح. الشعبي اللي الشرعي تبع قال الله يغفطي ويكون تبالك بشيء الشعبي بالك هو توتي. واضح. شوف اللي ما تشوفه. حاجة بدو يجي مثل. حاجة بدها. إنه جو مثله. واضح. وحصوها لما كويها ما في شيء بس في جوال اللي باشين واحد لكن كنترول كما إنتي جاري كذا ما وحاسي متخانة هلوي. مركب حي مهم وقلت عينه كنترولان. ويباهي هدي ما أركني هلي كلام بالكان ما كني عبد في سوق الهلال ماشي كل ذكران هدي وين كلام بالكان ما كيلو بتراد كي ماشي سكون بفكرة ترى يربي كل فلاي وشكو قولي في ما تخدع لي في بالك إيه ذاك اللي هو قولي لكن هذه اللي توتجا ما راتبي تكون يكون بقول مثل مو قارب قفوا جورا مو كده هذا وحكم بشتو مركب فكرة دي محل كيف يكون بتمثل مركب ليسي ودين إيه هو كل مركز جد إنه صار بالله كلام على كده جمع تسقين هذا وحكنا ولا جرم sida ay al-shabaab u kobciyeen awoodooda samaynta si lamid ah waxay bedbedelayeen xeeladahooda sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyagoo ku bilaabay wadada dhinaceeda goor dambana ku xiray baabuurta xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayay dadka hoos fadhiista ama hoos mara ama ag mara geedaha waxaa sidoo kale al-shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombiyuutarro iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016 khubarada dhinaca amniga iyo xubno hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka al-shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha dharowniska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhex maraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog siciid cabdulla dilib oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu xaqiijiyey in damacaasi uu ku jiro ururka al-shabaab diyaaradaha dowladda ku sheegay horta waxaa nooca la yiraahdo way EGI waana inta badan shacabkiisa isticmaalaan waa iclaamiyiinta iyo muxuufaha iyo dadka lamid ah isticmaalo waddanka maarkiisa halbeeska loo diraa ilaa waxay ku maqnaan kartaa sanadkii dambeeso iclaamiyiinta ay isticmaalo maarkiisa kaabirta lagu xiraa kor saas wax loogu duubaa xataa Soomaaliya way taalaan inta Soomaaliya way isticmaalaan waati marka ay waxay rabaan inay si kale ugu faa'iideystaan ilaan baawurti سوقيش عمرو ويأتي وحدنا لقطي بيجي وربنا بيجي كل كل ما عرفت سوا كل كانوا يقول أصلا فكذا كان أصلا ما عرفت شيء
haddii waday ka xirto ma sii raadiyaan imaan masalan baashaan shaqada gorbaa la keenay waxay keeneen markii laamiyada la dhisay oo muxuu ahaa dalka la dhisay markuu nimanka ku xigirin jiray dhulka gelin jiray laamiyada maanta lagu bilaabay la dhisay markuu heesay ma gelin karaan tan su'aal fiir maxaa ku leedahay istiqi sabta doolar ku jiro marka hadda maadaama maaragtay qawaanida maaragtay dowladda axmar ku adkaa waxay ku fikireen mataqaana in macnaha sidii faa'iideyn wax ku xiraan ama ay ku carqalayaan sameeyaan maaragtay meesha ku fikiraan iyo wax ku sameeyaan waa gartay waxay saari karaan wax badan ma aha حتى مارتي شو عن رأي مارتي في هذا الحدود وريجي شو حس شيء واحد لما يو مارتي شيء أو ديار ما لكن إن لقوا رقوا الشعب مركا وحير إيش شرح السيدة أي ربان استعمالان وحي ربانون إن المجال هذا كوك عيان أو أي ميل وحكاك توران مثل وحي ربان درونسك أو قرح كحرية إن يقف كلفتان أما باسم كلفتان سيدة وشهد واسمه في التاريخ هو وإن يحمل وسط شو اللي ممكن يحمل مثلا واحد كذا كذا حمل وإن واحد أمر وإن عالم كان على هذه الحمل عن نوع إلى به وهذا ما تروح صار وعقدين صار ما اللي يحمل ونود ما على الحساب مثل كذا يكون حتى ما في شيء اللي يجوز كل يعني وحنا ما أصلا إن وضع كذا إنتشار وشيء تاريخ هو وإنت واقع ودين ودين كذا قاعدة ما تقع الحمل سوقي ولا ولوبي ما في واحد ودي كذا اسمه وجرام شعب كوبابو واحد هو يوم قال يكرر وين من الحمل الله dalka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka al-shabaab xeeladahooda iyo qaraxyada ay adeegsadaan hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancino waraysi inay bixiyaan hase yeeshee galka baarista waxa uu suurta gashay inuu waraysto taliyihii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada Mareykanku gaashaanle dhexe Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeni Qaar oo dhawaan xilkaasi wareejiyay xilliga uu galka baaristu waraystay taliye Jeeni Qaar waxa uu weli hayay xilkiisii taliyanimo ee danab inta iyaga ay danaynayaan inay waxyeelo sameeyaan annagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo xaaladooda ay aaminsan yihiin iyo waxa ay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay jira leeyihiin intaba waanu raadinaa marka dadku way jaawareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah waadata laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamadaad ka mid tahay deegaanadana waad ka dagaalantaa aqoon baad u leedahay hubkan la sheegayo milaanka iyo Sam 7 iyo waa hub Soomaaliya hore u yaalay dad badanna oo khubaro military ay sheegaan inuu gacantooda ku jiro marka wax walaac aydan kuma hayaniya horta hubkii hore oo Soomaaliya yaalay horta dad hadda xaalad sax ku shaqayn kara ama 40 sano ilaa 50 sano wax hubo intaas yaalay sidii loogu talagalay shaqayn karaa ma jiro haddii ay leeyihiin Sam iyo maxaan raadaa qariiq kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qariiqda xillisadana iyo siiyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara laakiin aysan isticmaali karin laakiin kuwa aan gacanta laga digo wax awood oo ay u soo kordhinayso hadday haystaan ma jirto muhiimaddu waxa weeyaan qofka ciidan ma haystaan nimankani ciidan awood ma haystaan waxay wax ku weeraraan wax ururis ah maalin markay meel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas 3 bilood ilaa 4 bilood inay meel ku weeraraan oo weliba ay qof walba keenaan meeshaas qorgi u soo aasaan ka bacdigeed ay sida ay isugu xiran yihiin iyo inay unug noqdaan iyo inay koox noqdaan ay ku qaadato waqti dheer waayo waxay baqayaan inta ay sabaan inay dhibaateeyaan waxay ogyihiin in ka badan in la rabo inay dhibaateeyada marka kalsooni ay wax ku arursadaan ama wax ku diyaarsadaan ma haystaan mana qabaan waxa aan wax ka weydiiyey taliye Jeeni Qaar xeeladaha iyo farsamada al-shabaab ee isbedbedelaysa waxaa la sheegayaa inay drone-iska keensadeen oo doonayaan inay qaraxyo ku xidhaan oo ama ciidan ay ku weeraraan ama saldhig ay ku weeraraan jawaabtaada drone-iska horta waa ganacsi wax maxaan ku raadayay ciidankana waa isticmaalaa media waa isticmaalaan waxaa raadayay bulshada inteeda kalena way isticmaashaa marka waa wax bareefad oo si bareefad loo galan karo laakiin waa inaad weydiisid kiilo intee la qaadi kartaa marka ugu horeysa waa laga yaabaa inay isticmaalaan wayna isticmaalaan oo hadda ka hor way dhacday inay isticmaalayeen sawirro ku isticmaalayeen iyo wax kale ma isticmaaleen laakiin haddii laga guulaysan waxaa ku talagalay inay sawirro isgeyso haddii ay guulaystaan inay sawirro ay baraha bulshada ku faafiyaan inay ka sameeyaan
taas waa wax aan lamid ah weeye oo bulshada rayidka ah inay isticmaasho ciidamada isticmaalaan laakiin dareen wax u qaadi karo oo maxaan ku rahdaa wax garaaci karta wax samayn karta oo qaraxyo kiilo qaraxyo qaadi karta ma haystaan mana la imaan karaan laakiin haddayba ku fikirayaan sidaas ka waran halis intee leeg ayaa ka iman karta waxaa halis badan oo sii weyn kama imaan karto waayo annaga ciidankeena wuxuu u diyaarsan yahay inuu la dagaalamo argagixisada waxay isticmaali kartaa weji kasta oo galsan bay la imaan kartaa haddana annagana waxaa nala kaga baahan yahay inaan dulqaad u samayno markaasna looga hortago kaarto iyo balaan iyo qorshe marka annagana qorshayaasheeda waa noo dhisan yahay hadday la yimaadaan ma aaminsan inay wax bedel oo culays weyn kusii samayn karayso ama ay u gaarsiin karaan ciidankeena kasokow kabaca farsamada qaraxyada ee ururka al-shabaab waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida lagu wiiqi karo awoodda ururka ama looga adkaan karo Saciid Cabdulla Dilib waxa uu leeyahay ma cusla in laga adkaado ururka al-shabaab ariga kaliya laga hortagi karo waa in maaragtay mar lagu wada dhaqaaqo maaragtay lagu sameeyo waxa la yiraahdo khalad oo meesha waxa looga qaaday maalin bay magaalo laga saaro waxa looga qaaday ma jiraan magaalooyinka oo dhan intay banayaan marka magaalo after waxa kala ah waxa ahmiyadu waa haykalkaas mataqaana iyo nidaamkoodaas inuu dhisnaayo nidaamkana waxaa lagu burburi karaa dagaal mataqaana dhinac walba hal mar ciidanka military inay meel walba ka dhaqaan jibooy baybakool puntland hiiraan meel walbo in maaragtay macatuurka ama ajrada hal mar la galo iswaayaan waxaa ka dhalan doonta inay iswaayaan oo mid xilli la waayo kuuba ay kamid ah la qabto kuuba ay kamid ah dadka ka baxa markaas xiriirkoodii ima taqaana iska warqabkoodii wuxuu aad u sugu dhaca laakiin hadda markii la magaalaha laga saaro meelihii ka baxay xiriirkoodii way xigtaan hal mar oo ku dheertaas barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas fikradihiina noogu soo dira hmaruuf@voanews.com